maxaad ku xasuusataa dadkii dunida ugu caansanaa ee dhintay sanadkii dhammaaday ee 2018 dad ay ka mid yihiin siyaasiyiin jilaayaal saynisyahano ayaa raacay sanadii dhammaatay ee 2018 saynisyahano jilaayaal fanaaniin siyaasiyiin ganacsato kuwani waa qaar ka mid a dadkii ugu caansanaa dunida ee dhintay intii lagu guda jiray sanadii dhammaatay ee 2018 Professor Stephen Hawking saynisyahankan ayaa u dhashay dalka Ingiriiska waxa uuna ahaa nin ku xeel dheer cilmiga maadada physics-ka waxa uuna noqday saynisyahankii ugu qadarinta badnaa uguna caansanaa jiilkiisa wuxuu waqti dheer la dagaalamayay cudur howlgab ka dhigay xiriirka maskaxda iyo murqaha ee afka qalaad lagu yiraahdo motor neuron. Stephen Hawking waxa uu 8 Janaayo ee sanadii 1942 ku dhashay magaalada Oxford waxaana 14 bishii Maars sanadii 2018 ku geeriyooday magaalada Cambridge isagoo oo xilligaas da'diisu ay ahayd 76 sano jir. Professor Stephen waxa jira oraahyo lagu xasuusto oo ka hartay kadib geeridiisa. tan koowaad xusuusnow inaad mar walba hiigsato oo aad eegto xidigaha sare lugahaaga hoostooda ha eegin marnaba. tan labaad waxay ahayd weligaa ha ka niyadjabin shaqadu waxay ku yeelaysaa micno ujeedadii iyo noloshana waxba kama ahan shaqo la'aanta. tan saddexaad ee professorka laga haya waxay tahay haddii aad nasiib u yeelatid inaad hesho jaceyl xusuusnow weligaa in aadan iska tuurin. shakhsiga labaad ee sanadii tagtay 2018 geeriyooday waxay ahayd Aretha Franklin. haweeneydan waxay ahayd fanaanad u dhalatay dalka Mareykanka oo si weyn looga yaqaano magaceeda guud ahaan dunida. waxa ay fanka bilowday iyadoo aad u daayar waxa ay ku mutaysatay in lagu magacaabo boqorada heesaha ee loo yaqaan Soul. waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee ku caanbaxday heesaha qobka ciyaarka ee loo yaqaan rock iyo roll. Aretha Louise Franklin waxay 25 Maarso sanadkii 1942 ku dhalatay magaalada Memphis ee dalka Mareykanka. waxay 16 bishii Agoosto sanadii dhamaatay 2018 ku geeriyootay magaalada Detroit ee dalkaasi Mareykanka. fanaanadan ayaa sanadkii 2010 laga helay cudurka kansarka. sanadii horena waxa ay ku dhawaaqday in ay gabi ahaanba ka fariisatay heesaha ama fanka. waxaa lagu xasuustaa heesihii caan baxay ee fanaanadan gaar ahaan heestii Respect iyo Think. 20 goorna waxay kaalinta koowaad ka gashay tartamada heesaha dalka Mareykanka. taariikh faneedkeedana ayaa soo socday muddo ku siman 70 sano. John Mankin Master Mankin waxa uu ahaa rugcadaa siyaasadeed oo u dhashay dalka Mareykanka aadna looga yaqaan dunida inteeda kale. waxa uu khibrad fara badan u lahaa dagaalada kaas oo loogu aqoonsaday haliyey John Mankin. waxa uu ka tirsanaa xildhibaanada aqalka sare ee dalka Mareykanka uu ku meteli jiray gobolka Arizona. siyaasigan waxa uu ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga. sanadii 2018 ayuu u tartamay xilka madaxweyne ee dalka Mareykanka waxaana ka adkaaday madaxweynihii madoobaa ee dalkaasi Mareykanka Barack Obama. John Mankin waxa uu 29 Agoosto sanadii 1963 ku dhashay magaalada Cookasol ee gobolka Panama. wuxuu la tacaalay cudurka kansarka wuxuuna 25 bishii Agoosto sanadii tagtay ku geeriyooday magaalada Cleveland ee gobolka Arizona. George H.W. Bush waxa uu noqday madaxweynihii 41 ee dalka Mareykanka. madaxweyne George H.W. Bush waxa uu ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka xilligii dagaalkii labaad ee dunida. markii hore waxa uu madaxweyne ku xigeen u soo ahaa madaxweyne Ronald Reagan. waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay muddo 150 sano gudood loo doortay xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka. ciidamada badda dalka Mareykanka ayuu ka mid ahaa xilligii uu dhacay dagaalkii labaad ee dunida. wuxuuna isaga oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga soo noqday xildhibaan aqalka wakiilada u metela gobolka uu ka soo jeeday ee Texas. wuxuu 12 bishii Juunyo sanadii 1924 ku dhashay magaalada Milton wuxuuna 30 bishii November ee sanadkii tagtay 2018 ku geeriyooday magaalada Houston ee gobolka Texas. Barbara Bush waxay ka mid tahay dadka ugu caansan ee sanadii tagtay 2018 geeriyootay. waxay xaaska madaxweynihii 41 ee dalka Mareykanka. Barbara Bush waxay soo noqotay xaaska madaxweynaha dalka Mareykanka iyo hooyada madaxweynaha dalka Mareykanka. Barbara Bush waxay haweeneydii labaad ee abid taariikhda dalka Mareykanka ka soo noqotay marwada koowaad iyo hooyada koowaad labaduba iyadoo marna ahayd xaaska madaxweyne Mareykan maamula mar kalena noqotay hooyo dhashay madaxweyne Mareykan. 8 bishii Juun sanadii 1925 ayay ku dhalatay magaalada New York.
17 abriil sanadii dhamaatay 2018 ayay ku geeriyootay magaalada Houston ee gobolka Texas sida dhacday saygeeda uu isna magaaladaas ku geeriyooday. Morgan Tsvangirai wuxuu ahaa siyaasi aad looga yaqaano dalka Zimbabwe isagoo muddo dheer mucaarad ku ahaa isla markaana loolan gelinayay hogaamiyihii hore ee dalkaas Master Robert Mugabe. isagoo ra'iisul wasaare ah ayuu ku qanci waayay hanaanka uu dalku ku socdo wuxuuna sanadii 2017 ka qayb qaatay isku day wadada loogu xaarayay in xukunka looga tuuro madaxweyne Mugabe. 10 bishii Maarso 1952 ayuu ku dhashay magaalada Guta ee dalka Zimbabwe. wuxuu 14 bishii Febraayo ku geeriyooday magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. shakhsiga toddobaadna waa Sarah Devi Kapoor. Sarah Devi ayaa ahayd atrisho caan ka dalka Hindiya iyo guud ahaan caalamka waxayna dad badan u aqoonsanaayeen inay ahayd haweeneydii ugu horeysay ee xagga sare ka noqotay shirkadda filimada dalka Hindiga ee Bollywoodka. Sarah Devi waxa ay taageero badan ka heshay dalka Hindiya caalamka intiisa kale. waxay ka soo muuqatay 300 oo aflaan ama filimaan intii ay ku guda jiray xirfadeeda jilaannimo ee soo socotay muddada 50 sano. waxay ku guuleystay abaalmarin sharafeedka darajada afraad ee la siiyo qof shacab ah oo Hindiya taas oo lagu magacaabo Padma Shri. 13 bishii Agoosto sanadii 1963 ayay ku dhalatay magaalada Sivakasi ee dalka Hindiya. waxay 24 bishii Febraayo sanadii dhamaatay 2018 ku geeriyootay magaalada Abu Dhabi ee sutaga wadanka Imaaraadka Carabta. Masar Kofi Annan waa shakhsiga sideedaad ee aan sheekadan kaga hadlayno. isagu wuxuu dhashay dalka Ghana. wuxuu ahaa xogayihii hore ee qaramada midoobay. waxa uu mar ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize taas oo ah abaalmarinta ugu caansan caalamka. Annan intii uu noolaa wuxuu diiradda saari jiray sidii looga adkaan lahaa saboolnimada, cadaalad darrada iyo cudurrada. wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay Afrikaan madow ka soo jeeda ee qabta xilka xogayaha guud ee qaramada midoobay. 8 abriil 1938 ayuu ku dhashay magaalada Kumasi ee wadanka Ghana. wuxuuna 18 bishii Agoosto ee sanadii tagtay 2018 ku geeriyooday magaalada Penn ee wadanka Switzerland. shakhsiga sagaalaad waa Vijaya Sirvadabbaha. wuxuu ahaa ganacsade caan oo dhashay wadanka Thailand. wuxuu ahaa milkiilaha kooxda Leicester City Football Club kana tirsaneed horyaalka dalka Ingiriiska. Vijaya wuxuu Leicester City iibsaday sanadii 2010 wuxuuna tan iyo xilligaas ku dadaalayay sidii horumar uu u gaarsiin lahaa kooxdiisa. sanadii 2012 ayuuna si toos ah u noqday gudoomiyaha guud ee kooxda dawacada ama Leicester City. Vijaya wuxuu kooxdiisa u horseeday guulihii taariikhiga ah ee horyaalka Ingiriiska ay ku hanteen xilli ciyaareedkii 2016 kadib mar ay soo hantiyeen horyaalka heerka labaad ee Division 2 dalka Ingiriiska. 4 bishii afraad abriil sanadii 1958 ayuu ku dhashay magaalada Bangkok ee wadanka Thailand. wuxuuna 27 bishii Oktoobar ee sanadkan aynu macsalaameynay 2018 ku geeriyooday magaalada Leicester kadib qarax ka dhashay diyaarad helicopter uu saarnaa. shakhsiga tobanaad ee sheekadan daawada aynu ku ogeeyno waa Jamal Khashoggi. wuxuu wariye u dhashay dalka Sacuudiga kaas oo ku caan baxay dhaleeceynta boqortooyada Riyadh. Khashoggi waxaa dilkiisa uu dhaliyay muran xoogan. waxa uu ka mid ah wariyaasha farakutiriska ee khibrada ugu badan ku yeeshay saxaafadda caalamka. wuxuuna waraysi la yeeshay hogaamiyihii hore ururka Al-Qaacida Osama bin Laden. isaga oo baxsad ka ah maamulka Sacuudiga ayuu u wareegay dalka Mareykanka si uu magangalyo ugu raadsado. waqtiyadii u dambeeyay noloshiisa waxa uu qoraallo lidi ku ah dowladda Sacuudiga ku qoray wargeyska Washington Post ee laga leeyahay dalka Mareykanka. 13 Oktoobar sanadii 1958 ayuu ku dhashay magaalada barakeysan ee Madiina. waxaana 2 bishii Oktoobar 2018 lagu dilay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. ugu dambeyntiina Cawil Daahir Salaad waxa uu ka mid ah wariyaashii ugu caansan saxaafadda Soomaalida maanta. Cawil waxa uu muddooyinkii dambe fadhigiisu ahaa magaalada Muqdisho. dabayaaqadii 80-yadii ayuu wariyay Cawil Daahir Salaad ka shaqeynayay raadiyaha dowladda ee Radio Muqdisho oo ahaa halkii raadiye ee ka jiray guud ahaan dalka. markii uu dalka burburka galay wuxuu uu wariyaha ka mid ahaa dhalinyaradii isku dayday dib u soo nooleynta warbaahinta dalka Soomaaliya. waxa uu soo saari jiray mid ka mid ah wargeysyada tirada yar ee gacanta lagu daabici jiray. 22 December sanadii tagtay ayuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho isagoo ay da'diisu ahayd qiyaastii 45 sano jir.
guud ahaan daawadayaal intaas ayaynu kusoo koobaynaa qormadii aan kaga hadlaynay maxaad ka xasuusataa dadkii dunida uga caansanaa ee dhintay sanadii dhammaatay 2018 waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdullaahi Axmed Digri.